عقال odayaal wax garad iyo sidoo kale salaadiin ka soo jeeda magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer oo shir jaraad ku qabtay galabnimadii shalay hotel cafe magaalada Burco ee bogaadin iyo sidoo kale taageerada uu muujiyay ciidamada qaranka Soomaaliland guusha ay ka soo hoyeen dagaalka ku dhexmaray ciidamada maamul goboleedka Puntland deegaanka Tukarraq ay ka tirsan gobolka Sool dhanka kale cuqaashan wax garadka iyo sidoo kale salaadiintani ayaa ka hadlay dhalinyaro khalkhal galiyay amniga magaalada burburiyeen hanti ganacsadayaal waxayna sheegeen in ay meel uga soo wada jeesan doonaan cid kasta oo lid ku ah amniga qaranka Soomaaliland haddaba iyagu سيكالي وحكمي هذا الذي سيداتان تكرق iyo Soomaaliya iyo Soomaaliland inta u dhaxaysa culaad ba ka ogan weerar baa la inagu soo qaaday weerarka la inagu soo qaaday waa mid gardarro ah wali bayna gaarin xuduudeeni iyadoo xuduudeeni ayna gaarin ayaa hadana weerar la inagu soo qaaday waxaan leeyahay ciidanka qaranka la iska rabtaago waxaan kaloo mahad u celinayaa ciidanka booliiska ee ka hawlgalay maalintii dhawaato arinta ka hawlgalay ayaan aad iyo aad mahad ugu celinayaa oo dhibaato badan la gaarsiiyay iyaga laftooda dhib badan la gaarsiiyay la daqdaqray dhaawac la gaarsiiyay ayagoo hubaysan oo rasaas haysta oo hubaysan haddana aan arrintaas waxaan ku dhahday si nabadgelyo ku dhameeyay ciidanka booliiska saasaan ugu mahad celinayaa sow boon lama dhigin sow dawladuhu iyagoo kala dambeeyay boon may dhigin sow may odhanin ciddii tallaabo qaada waxa laga qaadayaa tallaabada tiiba taagan hal la qaado hadii ay taa noqon weydo fiiha laaqiya waxaan ku hadlay magaca gudjoogta halkan Burcaan joogaa maalintii dhawaato waxa ka dhacay wada joogay odayaashii maanta way shireen ugu horeeyay way hadleen marka waxa leeyahay nabadgelyadu waa in labada dhinacba nabadgelyo waxa lagu faano wanaagsan weeyaan marka in nabadda la ilaaliyo waxaanu baaqooda jira u diraynaa walaalada iyada ceelaf weyn dhiigooda ku daadanayo ee dadkoo dhan u baaqay sida gobolka Togdheer yaani cidii shaqaagadaasi gaadhay wixii gobolka beelahaanada gaadhay inay yaani aan ka xal marino oo ka raali galino wixii dhibaato ku dhacdayna anagu bixino taas waa qodobka labaad sida aan horeba u sheegay waxaan u soo jeedinaa labada beelood ee walaalaa inay joojiyaan dagaalka inay qoridu wiil baa ku dhinta ee waxa weeye kuma dhashay ay nabadgelyada iyo tolnimada iyo walaalnimada iyo derisnimada iyo ehelnimada ay qiimeeyaan la isu macnayn maayo oo la isu sheegi maayo nabadgelyadu iyo noloshu sida ay isku yihiin nabadgelyo marka la yiraahdo waa nolosha koobaad haddii aan nabad jirin nolol ma jirto nabadgelyo darradaana waxa sameynaya dhowr iyo 20 sanadood ee maanta Burco ay nabadda ahayd inankii gurigii uu ku dhashay ku hana qaaday ee iskuulka ku galay ee malcaamadda ku galay ee aan colaad iyo dhibaato waxa ilaahay aan soo marin weeye hadalka si kale hadaan hoos ugu degno reerku mucaarid waa ahaan jiray laakiin ciyaal iyo dumar dhagxan tuuramaana lahaan jirin maanta noogu horeysa ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaanu ilaahay ka baryaynaa sida yadii hore ilaahay nagu soo celiyo sidaan siba maahe oo ciyaalka iyo dumarka iyaga gacantayada dib ugu soo celiyo dawladuna ay nala qabato waxa weeye aad iyo aad ayaan uga xunahay waxa dhacay boolojiis guud waxaan siinaynaa reer Soomaaliland oo dhan boolojiis labaad waxaan siinaynaa reer Togdheer boolojiis saddexaad waxaan siinaynaa Burco barigeeda boolojiiska afraad oo ku celcelinayno waxaanu siinaynaa cidii wax gaadhay oo ugu horeeyo Omar ma ahayn oo magayo inuu noqdo isagu taarget bartilmaameed inuu noqdo marka ciyaalku dhagax shiidayaan aqalkiisa magaalada ugu qurux badan ee ugu camiran ee magaalada nuuriyay ee baa mushtariga culus hoos yaalo ee laga wada shaqaysanayo ee magaalada quruxdeedii in afartii xumaan sameeynayaba isaga dhagax ku soo tuuraan Omar taa magayo boolojiis baan ka siinaynaa wixii gaadhayna waa dushayada oo waa bixinaynaa Cabdiraxmaan Ciise wararka telefishinka caalamiga Somali Cable Burco.